بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ولا له مسلمين تا ku xiran kanaalka waanada qoyska isku soo noqod wanaagsan ku soo dhawaada waano dhaxalgal u ah dhismaha qoyska. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa talooyin muhiim u ah farxadda lamaanaha qoyska haddii uu Allah awoodo inoo ogolaado la socod wanaagsan. Talada labaad, si wanaag ah in ay ku wada noolaadaan qoyska ama xubnaha qoyska. Wanaagu waa farxadda lamaanaha, waa jiritaanka qoyska, waa udub dhaxaadka nolosha, waana halka ay ka bilaabato farxadda qoyska. Sidaas darteed, wanaagu waxaa loogu baahan yahay labada qof ee wada nool ku bahoobay nolosha aadmigana iska doorteen ee ah sawjka iyo sawjada ama sayga iyo xaaskiisa in ay si wada jir ah u sameeyaan wanaaga, saldhigna ay uga dhigaan wax walbo nolosha qoyska ku saabsan. Nolosha guurku waa xidhiidh, jacayl, naxariis iyo iskaashi ka dhaxeeya lamaanaha isqaba iyadoo laga duulayo qolkii Eebbe ee ahaa wajacala baynakum mawaddatan wa raxma, wuxuu idinka yeelay dhexdiina kalgacal iyo naxariis. Raggu waxaa la faray oo waajib ku ah inay wanaag kula noolaadaan qoysaskooda ama reerahooda. Allah wuxuu leeyahay wacaashiruuhunna bilmacruuf. Dumarkuna waxaa waajib ku ah in ay kula noolaadaan raggooda wanaag, ixtiraam iyo kalgacal, kana fogaadaan erayada xunxun. Samaynta wanaagga oo dhan ayaa ah mid lama huraan u ah ilaalinta iyo wadajirka qoyska. Haddii uu jiro wanaag, ixtiraam, xasilooni ka dhaxaysa xubnaha qoyska, waxaa imaanaya farxadda carruurta. Sidoo kale waxay helayaan farxad joogto ah ama amarna aan dhammaan. Kutubta taariikh nololeedka Nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa cadeynaya xaalado badan oo Nabigu la macaamilay haweenkiisa, halkaas oo ku heleen nimcada Nabiga sallallahu alayhi wasallam sida wanaagsan oo ula dhaqmay. Sidoo kale Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Kiin idin khayr badan ayaa idinku khayr badan ehelkiisa, aniguna reerkayga ayaa idinku khayr badanahay, ayuu dhahay Nabiga sallallahu alayhi wasallam. Xadiidka Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku boorinayaa in la gaaro wanaagkan ugu sareeya asiga oo loo sameynayo guud ahaan qoyska, gaar ahaan dumarka. Waa inaan raacnaa dhammaan habdhaqankiisii wanaagsanaa sida akhlaaqdiisa, dabacsanaantiisa, naxariistiisa iyo la macaamilkii qoyska. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam sidoo kale wuxuu ku boorinayaa inuu noqdo qofka muslimka kan ugu sareeya ee ka faa'iideysta khayrka iyo samafalka ehelkiisa. Dhaqankan wanaagsan ayaa ah mid aan kaga dayanayno Rasuulka sallallahu alayhi wasallam, waayo asiga ayaa ku dayasho mudan. Xadiiskan sidoo kale wuxuu ku boorinayaa qofka muslimka inuu noqdo qofka ugu horeeya ee ka faa'iideysta khayrka iyo samafalka ehelkiisa, isagoo ka bilaabaya dadka ugu dhow, maxaa yeelay ehelku waa kan ugu dhow ee mudan in loola dhaqmo si wanaagsan. Balse nasiib darro, dad badan baa xadiiskan khilaafay. Qaar baa akhlaaq wanaagsan dadka kula jira, laakiin reerkooda ku adag ama ku qalafsan, aadna ugu xun la dhaqankooda. Taasina waa khalad, waayo dadka ugu habboon samafalku waa qoyska. Reerka ayaana mudan in loola dhaqmo si ka wanaagsan sida loola dhaqmo dadka intiisa kale. Ragga waxaa ugu khayr badan kan ehelkiisa u naxariista, wanaagana ka bilaaba hooyadii, aabihii, xaaskiisa iyo carruurtiisa, waayo qofka caasi waalideynka ah xaaskiisa iyo carruurtiisa ma wanaajin karo ilaa waalidku u soo wanaajiyaa. Sidaas darteed, marka hore waa in waalidka laga bilaabaa wanaajinta iyo samafalka, taas uu Allahna faray. Markaas qofka wuxuu awoodaa in dadka oo dhan si wanaagsan ula dhaqmo, ilmahana sidaas oo kale ayuu ula dhaqmi doonaa. Qodobkan waxaan ugu dheeraaday in aan fahano micnaha weyn uu wanaagu leeyahay, maadaama xumaantii ay faaftay, saameyn ballaaran ay ku yeelatay burburka qoysas badan oo Soomaaliyeed. Talada saddexaad, si wada jir ah inay isku caawiyaan shaqada guriga. Lamaanuhu waxaa loogu baahan yahay in si wada jir ah ay isku caawiyaan shaqada guriga. Caawinta, naxariista, wada shaqaynta iyo isku dhimrintaba waxay keenaan farxadda qoyska iyo isku soo dhawaanshaha lamaanaha nolosha. Nabiga sallallahu alayhi wasallam
wuxuu si wanaagsan ula dhaqmi jiray haweenkiisa, caruurtiisa iyo dadka oo dhan. Ummuna Caaisha Allaha ka raali noqday oo ahayd xaaskii Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa wax laga weydiiyay dhaqankii Nabiga sallallahu calayhi wasallam, waxayna tiri wuxuu ahaa bashar inta kale aan waxba dheereen markii laga reebo risaalada iyo nebinimada. Dharkiisa ayuu tolan jiray, kabihiisa ayuu acsiisan jiray, ri'diisa ayuu lisan jiray, naftiisa ayuu u adeegi jiray, waxa ay ragga ay guryahooda ka qabtaana ayuu ka qaban jiray. Salaada aqinkeeda markii uu maqlana waa uu bixi jiray. Haddaba haddii uu samayn jiray basharka kan ugu qayrka badan ee Nabi Muhammad sallallahu calayhi wasallam ee ahaa khayru khalqillaahi, bal adigaba maxaa kaa hortaagan in aad u kaalmaysid ama u samafashid ama caawisid xaaskaada adiga oo og ama dareemi kara xanuunada qaar ee la soo darsa dumarka. Marxaladahan kala duwan ee marayaan haweenka intooda badan way la xanuunsadaan, sida xamliga ama uurka ilmaha ku jira, xilliga dhalmada oo ay marayso foosha ugu xanuunka badan nolosheeda gabadha. Intaa waxaa u sii dheer ridaaci iyo barbaarintii ilmihii yaraa ilaa 2 sano. Ninka ragga ah waa kan ka warqaba xaaskiisa, kaalmeeya xaalad kasta ay ku jirto, caruurtiisa xanaaneysta, marna aan iskala weyneyn howsha guriga inuu qayb ka qabto. Sidaas marka ay isku kaalmeystaan shaqada guriga, halkaas waxaa ka dhalanaya farxad. Xaaska wanaagsani waxay dareemi doontaa inuu Allah ku arsaaqay sooj wanaagsan, garabkeeda ah, mar walbana caawiya, u dhimriya ama u naxariista. Talo waxaan kula talin lahaa dhammaan qoysaska in ay is caawiyaan, iskuna kaashadaan shaqada guriga, waayo waxaa la yiri gacmo wada jir bay wax ku gooyaan, iskaashatana ma kufto. Ragga waxaa kula talin lahaa in wax badan ka akhriyaan kutubta siirada ama taariikhda Nabi Muhammad sallallahu calayhi wasallam, khaasatan sida uu la dhaqmi jiray xaasaskiisa, si wax badan ugu fahmaan nolosha qoyska iyo habdhaqankeeda wanaagsan. Muuqaalka oo dheeraaday aawadeed halkan ayaan ku joojinayaa insha Allah. Waxaan sii dhammaystiri doonaa muuqaalka xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.